kulanti wacan oo wanaagsan daawada halkan waa barta YouTube ee barta wararka qodobada warkayga aad ku daawan doontaan anunaan idiin soo gudbin doona waxa qayb ka noqonaya filla Soomaaliya oo faragelin toos ah ku yeelatay kuraasta golaha shacabka ee markaasi lagu wada in dhawaan lagu doorto magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle kursiga sumadiisu ay tahay hoob 106 ee beesha galmaax Yunis Farmaajo waxa uu doonayaa in markaas saaxiibo dhow nin ay yihiin uu xiro kursiga beesha galmaax horay waxa ugu fadhisay tiktooreysa Mina Xasan Shibis hadda waxa uu madaxweynaha waqtigu ka idlaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Cali Guudlaawe iska kaashanayaan sidii loogu xiri lahaa nin ugu dhow filla Soomaaliya oo lagu magacaabo Yuusuf Cabdulle Yuusuf Jaalle kaas oo ay saaxiibo dhow yihiin madaxweynaha waqtigu ka idlaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddaba waynu eegi doonaa sida daawadayaal ay ku suurtagali karto in kursigaas loo xiro Yuusuf Jaalle iyo caqabadaha ka dhalan karo aynu si wada jir ah u falanqayn doonaa qodobada kale ee warkayaga aad ku daawan doontaan anuna idiin soo gudbin doona waxa qayb ka noqonaya duqa Muqdisho Umar Finis waxa uu sheegay in Muqdisho ay ka jirto arrin ka halis badan qaraxyada iyo dilalka qorsheysan ee ka dhaca gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Finis oo sidaas oo kale waxa uu sheegay in maalin waliba loo soo gudbiyo xogta la xiriirta qaraxyada iyo dilalka ka dhaca caasimadda balse waxa uu tilmaamay marka uu eegay in taas ay kaga halis badan tahay dhibaatooyinka ay geystaan dadka isticmaala maandooriyaha haddaba sidee bay qaraxyada iyo dilalka qorsheysan kaga saameyn badan yihiin dadka isticmaala maandooriyaha waynu eegi doonaa iyo hadalhayn dhowr ah oo ka dhalatay hadalka ka soo yeeray duqa Muqdisho qodobada kale ee warkayaga aad ku daawan doontaan anunaan idiin soo gudbin doona waxa qayb ka noqonaya guddiga doorashooyinka waxay fasaxeen doorashada kuraasta banaadiriga waxaa la soo saaray jadwalka doorashada kuraasta haddaba xubnaha ugu cadcad ee ilaa iyo haatan laga cabsi qaba in ay ku guuleystaan aynu idiin soo gudbin doonaa iyo shakhsiyaad si gaar ah loogu xirayo kuraastaas qodobada kale ee warkayaga aad ku daawan doontaan anunaan idiin soo gudbin doona waxa qayb ka noqonaya wararkii ugu dambeeyay ee duqeymaha ku soconaya Ukraine dagaalka u dhaxeeya Ukraine iyo Ruushka magaalada Kiev la yiraahdo ay duqeyntu xilligan ku soconaysa guud ahaan wararka ku gadaaman dalka Ukraine iyo duqeymaha ku soconayo barakac xoogan oo caasimadda ka bilowday ayaan daawadayaal idiin soo gudbin doonaa qodobadaas iyo qodobada kale ee nagu soo kornay inta warkayaga aynu ku guda jirno ayaan si wada jir ah u daawan doonaa daawadayaal aan ku xasuusiyaa haddii aad nagu cusub tahay inaad subscribe noo saarto gambaleelka aad furto daawada si mar waliba aad u hesho wararka warbixinada xogaga iyo barnaamijyaadka gaarka ah ee aan halkaan idinkugu soo gudbino qaybaha dambe qaybaha hoose ee commentiga noogu reeb oorahdaada kaaga aadan wararka iyo warbixinada aan kuu soo gudbinin muuqaaladayna sii share garay oo asxaabtaada la wadaag daawade ugu horeyn warkayaga aynu ku bilownay filla Soomaaliya markii ugu horeysay waxay isku dayaysaa in faragelin qaawan ay ku sameeysto kuraasta taala magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle madaxweynaha waqtigu ka idlaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la taliyihiisa amniga qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe waxay iska kaashanayaan sidii markaas saameyn togan ay ugu yeelan lahaayeen kuraasta taala Jowhar Cali Guudlaawe ayaa loo kaasanayaa sidii markaas kuraasta beeshiisa ee taala Jowhar uu ugu soo saari lahaa xubno si gaar ah ay u wadata filla Soomaaliya geesta kale warar soo baxaya waxay sheegayaan in hoob 106 uu yahay kuraasta la sii saadaalinayo ilaa ay haatan in markaasi shakhsi uu wata Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaasna lagu magacaabo Yuusuf Jaalle in si gaar ah loogu xiro kursigaas oo kursiga beesha galmaax Yunis oo ay hore ugu fadhisay tiktooreysa Mina Xasan Shibis xilligaani Cali Guudlaawe Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay si wada jir ah uga shaqeynayaan sidii loogu xiri lahaa Yuusuf Jaalle oo ay saaxiibo dhow yihiin warar lagu kalsoon yahay oo aynu helnay waxay sheegayaan in kursiga beesha galmaax oo horay ugu fadhisay tiktooreysa
mina xasan shibiis uu hadda madaxweynaha waqtigu ka idlaaday maxamed cabdilaahi farmaajo iyo la taliyihiisa amniga qaranka iyo sidaas oo kale madaxweynaha maamulka Hirshabelle ay doonayaan in si gaar ah kursigaas ay ugu xiraan nin lagu magacaabo Yuusuf Cabdi Cabdulle Yuusuf Jaalle oo ay saaxiibo dhow yihiin farmaajo. Yuusuf Jaalle ayaa horay u soo noqday maareeyaha guud ee hay'adda saadaasha iyo duulista hawada Soomaaliya, balse xilligaas laga qaaday markii lagu eedeeyay in markaasi dib u dhac iyo sidaas oo kale si markaasi safaradiisa dibadda ah ay bateen. farmaajo ayaa ku qancinaya Yuusuf Jaalle kursiga beesha galmaax maadaama Yuusuf Jaalle uu markaas sidaas oo kale ka tirsanaa xubnihii sida aadka ah ugu dhawaa maxamed cabdilaahi farmaajo, isla markaasna uu qayb ka yahay saaxiibada u dhow farmaajo. xubnihii markaasi markii lagu jiray dagaalka badbaado qaran wuxuu qayb ka ahaa xubnihii sida aadka ah u garab taagnaa maxamed cabdilaahi farmaajo. wararku waxay intaa ku darayaan in tartanka kursiga hoob 106 ee beesha galmaax tartankiisu uu sidaas oo kale ku jiraan xubno uu ka mid yahay xildhibaanka beesha cali cumar iyo sidaas oo kale xubno kale oo dhowr ah uu qayb ka yahay cabdulaahi cadde nin lagu magacaabo muxudiin darbaweyne kaas oo ka soo jeedo beesha mataan cabdulle iyo xubno kale oo dhowr ah. waxaa laga cabsi qabaa in kursigaas markaasi buuq badan uu dhaliyo isla markaasna dagaal uu ka dhasho. hore ciidamo ka tirsan kuwa badbaado qaran isla markaasna qayb ka ah ciidanka militariga ee ka soo horjeeday in farmaajo waqti loogu daro ayaa jawhar buux dhaafiyay, waxayna cali guudlaaba kaga digeen in kuraasta qaar ee taalla jawhar in markaas uu xiro xubno filla Soomaaliya ay wadato. cali guudlaaba oo beledweyne ka soo laabtay jawhar ayuu ku sugan yahay, waxaana xilligan ay u muuqataa in mid ka mid ah waxyaabihii looga digay muranka iyo dagaalka dhalin karana uu qaadanayo. qorshaha ayaa ah in sanadkan kursiga beesha galmaax la siiyo beesha maxamed muuse ama sidaas oo kale mataan cabdulle. sidaas oo kale waxaa xubnaha marka beelaha loo qorsheeyay qayb ka ah cabdulle galmaax maadaama sanadkii hore ay qaadatay beesha sidaas oo kale cali cumar. wararka ayaa sheegaya in kursigan sanadkan la sii doono beesha maxamed muuse, hase ahaatee loo xiri doono sidaas oo kale Yuusuf Jaalle oo ay saaxiibo dhow yihiin madaxweynaha waqtigu ka idlaaday maxamed cabdilaahi farmaajo. waa horay kursigani ugu fadhiday mina xasan shibiis oo xilligani sidaas oo kale u muuqata in ay ka harto hamigii tartanka ay ka lahayd, isla markaasna beesha cali cumar markaas horay kursigan ay ugu fadhiyeen. waxaa laga cabsi qabaa in markaas xubno uu darbaweyne qayb ka yahay in markaas ay diidaan qorshaha filla Soomaaliya ee kaga aadan kursiga markaasi beesha galmaax yuunis ee yaala jawhar. cali guudlaawe waxa uu muuqdaa in markaasi xiisad halkaas uu ka sii abuuri karo haddii uu qaato go'aanka filla Soomaaliya ee ku aadan in markaas kuraastaas uu xiro xubno si gaar ah filla Soomaaliya ay wadato. markana waxaynu eedi doonaa weli annaga oo ku jirno arrimaha la xiriira doorashooyinka. guddiga doorashooyinka waxay fasaxeen doorashooyinka kuraasta banaadiriga, waxaana sidaas oo kale la shaaciyay jadwalkooda. guddigii uu ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble u xil saaray xalinta khilaafaadkii ka dhashay kuraasta banaadiriga ayaa ku guuleystay xalinta khilaafaadkaas sida ay shaaciyeen guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee fiid. qoraal lagu baahiyay bogga Facebook ee guddiga ayaa sidoo kale lagu sheegay in la fasaxay qabashada doorashada kuraasta ayna bilaabanayso diiwaangelinta. saacada kadib guddiga maamulka doorashada xildhibaanada banaadiriga ayaa shaaciyay xubnaha guddiga xulista ergada iyo 5 kursi ee markaasi loo shaaciyay golaha shacabka. 3 kursi ee markaasi kala ah hoob 34 hoob eber 84 hoob 266, waxaana xubnaha odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ay markaasi sidaas oo kale la shaaciyay soo matalayo. sida lagu sheegay jadwalka uu soo saaray guddiga doorashada banaadiriga, waxaa sidaas oo kale bilaaban doonto xulista iyo diiwaangelinta ergada soo xulaysa kuraasta iyo sidaas oo kale tababaridooda. sidoo kale waxaa lagu wadaa in guddiga ay sidaas oo kale qabanqaabiyaan sida guddiga waxaa lagu wadaa isla maanta ayaa sidaas oo kale guddiga qabanayaan araajida diiwaangelinta lacag shubista iyo shahaadasiinta musharaxiinta raba inay u tartamaan.
doorashada shanta kursi ayaa qorshuhu yahay in la qabto sidaas oo kale maanta oo markaas taariikhdu ay ku beegan tahay 25 bishan si markaas loo soo gabagabeeyo arrimaha dardargelinta doorashooyinkana looga dhamaado horay banaadiriga waxaa kaga taagneed cabasho xoogan xilli ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble xubno dhowr ah oo markaasi eedeyn ay u soo jeediyeen isla markaasna ay tibaaxeen in ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble uu wado qorshayaal dhowr ah oo ku aadan sidii markaas kuraastaas uu u dhaafsiin lahaa beelaha banaadiriga isqabqabsi xoogan ayaa ka taagnaa dhanka beelaha banaadiriga oo ku aadanaa in ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble ay ka tabanayaan arrimo dhowr ah oo ay qayb ka tahay in markaas uu doonayo kuraasta inuu boobo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa waxaa lagu eedeeyay in markaas kursi ka mid ah kuraastaas uu doonayo inuu si gaar ah ugu xiray markaas gabadha u dhaxda madaxweynihii hore ee maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed taas oo muranka ugu badan uu ka dhashay isla markaasna la sheegay in ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble beelaha banaadiriga uu markaasi ka talageliyay sidii kuraastaas iyo qaabka loo maamuli lahaa markana guddiga doorashooyinka waxay soo saareen arrimo kale oo dhowr ah la xiriira jadwalka doorashada kuraasta iyo sidaas oo kale in qaabkii loo maamuli lahaa golaha wadatashiga qaran ayaa soo saaray 6 qodob iyo waqtiga markaasi la dhameystirayo arrimaha doorashooyinka golaha wadatashiga qaran oo xalay zoom ku yeeshay shirkii markaasi ay ugu arrinsanayaan dhameystirka doorashada kuraasta ayaa sidaas oo kale dhiman ee golaha shacabka waxay soo saareen 6 qodob oo ay ka mid tahay waqtiga cusub ee markaasi la soo gabagabeynayo doorashada taas oo 15 maarsha ku eg golaha wadatashiga qaran ayaa 24 February 2022 hab fogaan arag ah zoomka ku yeeshay shir ay ugu arrinsanayaan dhameystirka doorashada kuraasta dhiman ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya maadaama waqtigii hore loogu heshiiyay in markaasi lagu dhameystiro doorashada ee ku eka 25 February 2022 ay suurtagali weysay kulanka oo shir gudoominaya ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waxaa ka qayb galay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada markaasi xubnaha ka ah madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdilaahi Deni madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Laftagreen Hirshabelle Cali Guudlaawe iyo sidaas oo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho عمر محمود محمد عمر فينيش كولنكا ayaa golaha wadatashiga qaran ay uga hadleen ajnadeyaal ay qayb ka yihiin xaaladda doorashooyinka mudnaanta sidaas oo kale soo gabagabeynta doorashada golaha shacabka xal horista arinta deegaan doorashada labaad ee Jubbaland Garbahari iyo sidaas oo kale caqabada kale oo dhowr ah iyo sidii loo maamuli lahaa doorashada loona sii hanaqaadi lahaa golaha ayaa bogaadiyay horumarka laga sameeyay habsami u socodka doorashada iyadoo ilaa ay haatan la soo doortay iyadoo ilaa ay haatan la soo doortay xildhibaano dhowr ah sidaas oo kale na gaarayo 175 xildhibaan waxaa sidaas oo kale la sheegay 71% tirada guud ee xildhibaanada in ilaa ay haatan la hayo golaha wadatashigu qaranka dood iyo falanqeyn kadib waxay muujiyeen sida markaasi ay ugu xan yihiin in doorashada xildhibaanada golaha shacabka aysan ku soo dhamaan xilligii loo qorsheeyay ee 25 February sanadkan aynu ku guda jirno ee 2022 golaha ayaa isla qiray in markaasi ay jireen caqabado dhowr ah oo sababay dib u dhaca doorashada kuwaas oo ay ka mid yihiin xaaladda abaaraha dalka ka taagan iyo sidaas oo kale goboleedyada inay saameyn ku yeelatay xiisadda amni ee markaasi ka soo korortay deegaan doorashada labaad qaarkood oo caqabado adag ay ka jiraan goluhu waxay isla raaceen in markaas 15 bisha Maaj lagu soo asteeyay isla markaasna lagu soo gabagabeeyay arrimaha doorashooyinka ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble oo shir gudoominayay ayaa golaha kala hadlay sidii loo soo gabagabeyn lahaa guud ahaan doorashada isla markaasna loo dardargelin lahaa arrimaha la xiriira dardargelinta doorashooyinka markana wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada Ukraine iyo xaaladda Ruushka oo markaasi sii cuslaanayso Kiev ay dagaalada ku sii saqayaan laba qarax oo waaweyn ayaa sidaas oo kale maanta oo Jimcaha laga maqlay bartamaha Kiev iyadoo ciidamada Ruushka ay xireen inay markaas ay riixayaan inay qabsadaan caasimadda dalka Ukraine
ciidamada Ukraine ayaa sheegay inay Ruushka markaasi ay ku duqeeyeen goobo ay degan yihiin dad shacab ah, hase yeeshee habka markaasi difaaca hawada ay sidaas oo kale iskaga caabiyeen 2 weerar oo culus oo markaasi lagu soo qaaday. duqa magaalada Kiev ayaa sidaas oo kale sheegay in 3 qof ay ku dhinteen, sidaas oo kale mid ka mid ah xaaladiisu ay halis tahay marka loo eego dadka waxyeelada ay ka soo gaartay. waxa uuna sheegay in caqabad adag xilligan ay jirto. guud ahaan warkii aad kala socoteen marta wararka daawaday waa naga intaa. waad ku mahadsantahay la socodkii la jaanqaadka warkayga.